Waa kuma ninka adduunka ugu taajirsan ee sanadan aan taagannahay 2021? Waxaa laga yaabaa inaad istiraado waa Jeff Bezos. Uu ahaan jiray, laakiin hadda ma ahan. Sanadan aan ku jirno 2021 waxaa noqday ninka koowaad ee adduunka ugu taajirsan, Elon Musk. Elon Musk lacagta uu haysto haddeer waxay gaaraysaa 189.7 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. Elon Musk wuxuu ku dhashay dalka Koonfur Afrika ee caasimadda Pretoria, wuxuuna dhashay sanada markay ahayd 28 Juun 1971. Waana nin Afrikaan ah, waxaana iska dhalay hooyo Kanadiyaan ah iyo aabbo Afrikaan ah. May Musk waa hooyada dhashay Elon Musk, waana model iyo cunto-yaqaan reer Kanadiyaan ah. Aabihiisa waxaa lagu magacaabi jiray Errol Musk, wuxuuna ahaa injineer iyo duuliye diyaaradeed. Elon Musk wuxuu aad u jeclaa akhrinta. Markii uu jiray 12 sano, iskiisa ayuu isku bari jiray barnaamijyada programming-ka si uu u horumariyo video gaming-ka. Waxaana ugu horeeyay uu sameeyay waxay ahayd game lagu magacaabo Blaster, wuxuuna markaas ku iibiyay lacag dhan $500 Mareykanka ah. Qoyskiisa waxay u soo guureen Canada asagoo 17 jir ah. Elon Musk wuxuu dhiganayay jaamacadda boqorada Canada muddo 2 sano ah. Wuxuuna abuuray application lagu magacaabo Zip2 isaga iyo walaalkiisa. 4 sano kadib waxaa ka iibsaday shirkad lagu magacaabo Compaq Computers, wuxuuna helay qaybtiisa lacag gaaraysa $22 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Sidoo kale wuxuu sameeyay website lagu magacaabo x.com oo sida PayPal lacaga la isugu diro. Isla asiga iyo dhalinyaro kale ayaa waxay aas-aaseen isla shirkadii PayPal, laakiin 2002 waxaa ka iibsaday shirkad lagu magacaabo eBay, waxayna ku iibsatay lacag dhan 1.4 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. Elon Musk wuxuu aas-aasay shirkad lagu magacaabo SpaceX, wuxuuna ku aas-aasay lacag dhan 100 milyan oo doolarka Mareykanka ah. February 2018 SpaceX ayuu tijaabiyay, waana gantaalkii ugu horeeyay uguna awooda badnaa adduunka, wuuna ku guuleystay. Inkastoo uu soo maray fashil badan iyo caqabado badan, laakiin ugu dambeyn wuu ku guuleystay. Waana gantaal dhulka ka qaadi kara dayax-gacmeed, hawada intuu galo dibna ugu soo celin kara dhulka, dibna loo isticmaali karo gantaalka. Waana shirkadii ugu horeysay ee gantaal noocaas ah samayso. Sidoo kale Elon Musk wuxuu aas-aasay shirkad lagu magacaabo Tesla oo fadhigeedu yahay United States of America, gaar ahaan California. Waxyaabaha ay hadda soo saarto shirkadda Tesla waxaa ka mid ah gawaarida korontada ku shaqeeya ama charger-ka ku shaqeeya. Waana gawaari xawaare sare leh, wuxuuna nuskii saac jaraya ku dhawaad xawaare gaaraya 249 kilomitir. Muuqaalkan halkan ayuu ku dhamaaday. Waxaan filayaa inaad muuqaalkan ka heshay. Haddii aad muuqaalkan ka heshay, ha iloobin inaad ku soo biirto kanaalka Faraxlow adigoo taabanaya qoraalka gaduudan ee subscribe. Muuqaalka xiga waxaan rajaynayaa anagoo faraxsan oo caafimaad qabna oo isu xiisnay inaan soo laabano. Mac salaama.